kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. haddaba dabeecadda bani'aadanka oo iyadu ah mid ku salaysan dabci uu Ilaahay ku abuuro qofka shakhsiyadiisa iyo weliba habdhaqankiisa, taalantiga iyo hibada iyo mawhibada uu yeelanayana ay tahay wax Ilaahay bixiyo. haddana sidaasi oo ay tahay waxaa saameyn iyo galaankal ku yeesha waalidkiis iyo weliba halkuu qofkaasi ka soo jeedo, habdhaqankoodii inay ahaayeen culimo ama caamo, inay ahaayeen ugaasiyo, odayaal dhaqmeedyo iyo weliba inay ahaayeen dhaqaatiir iyo macallimiin. intaba waalidka iyo weliba ehelka waxa ay ahaayeen 80% culimada nafsiga waxa ay leeyihiin saameyn bay ku yeelataa qofka shakhsiyadiisa. haddaba si kastoo ay ahaataba maanta barnaamijkeenu waxaynu kaga hadlaynaa fanaaniin Soomaaliyeed oo iyagu caan ka ah geyga Soomaaliyeed, cid kastana taqaana, oo iyagu waalidkood ay ahaayeen dad culimo ah, ahludiin ah, quraan ruug ah, welibana ah dadka tuftooda ay kacdo. haddaba si kastoo ay ahaataba fanaaniintaas ayaa iyagu wadadii waalidiintood inta ka leexdeen waxay noqdeen fanaaniin, iyadoo dhacaysa in waalidiintooda ay ahaayeen culimo diinta fidisa, waxaa dhacaysa in macallimiin iskuulla dhiga ama kuwa masaajidyo imaamo ama khadiibo ka ah inay ahaadeen waalidiintooda. haddaba fanaaniinta aynu soo qaadanayno maanta waxay ka mid yihiin fanaaniinta ugu caansan, kuwa loogu aqoonta badan yahay ama dadka Soomaaliyeed geyga Soomaaliyeed ha joogaano ama dibadiisa ay si fiican u yaqaaniin. haddaba waxaynu ka bilaabaynaa fanaanka weyn ee isaga caanka ah ee la holin waayo codka halaasigana leh Cabduqaadir Macalin Cumar Macalin Yuusuf Cabduqaadir Jubba loo yaqaano. Cabduqaadir Jubba waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii Soomaaliyeed kuwoodii ugu caansan, kuwooda ugu codka mac, welibana habsoo gudbintiisa ay tahay mid aad iyo aad loogu riyaaqo ama loo jecel yahay. haddaba Cabduqaadir waxaa dhalay macallin dugsi oo ay ka aflexeen arday badan. dadka deganaa xaafadda Bakaaraha ama Hodan si fiican ayay u yaqaaniin Macalin Cumar Macalin Yuusuf oo ahaa aabihii dhalay Cabduqaadir Jubba. Cabduqaadir Jubba aabihii ayaa wuxuu ahaa macallin diinta si fiican u yaqaana, xaafid qur'aan ah, arday badanna ay ka aflexeen. haddaba Cabduqaadir Jubba oo ah dhal macallimiin oo aabihii iyo awoogiiba ay yihiin dad macallimiin ah oo laga aflahay quraanna laga qaatay, ayaa isagu wuxuu ka beeray jidkii aabihii iyo kii awowgii. Cabduqaadir ayaa isagu waxa uu noqday fanaan heesaa ah, cod macaan, welibana waxa uu ka mid noqday kooxihii kala duwanaa ee ka dhisnaa geyga Soomaaliyeed ee fanka iyo suugaanta ahaa. haddaba Cabduqaadir ayaa in badan waxay leeyihiin aabihii waxa uu ka qaatay dabeecad wanaagga, akhlaaqda wanaagsan iyo weliba aadaabta ay u dheer tahay afgaabnida iyo weliba ixtiraamka. fanaanada kale aynu soo qaadanayno waa fanaanad jilaa ah oo in badan oo Soomaaliyeed qosolkeeda, dhoola cadeynteeda, habjiliinkeeda iyo weliba waxay ka mid ahayd kooxdii folklorka ee iyadu qoobka ciyaarka iyo weliba dheesha soo gudbin jirtay. waxaa weeye Faynuus Sheekh Daahir. Faynuus waxaa dhalay sheekh caan ka ahaa geyga Soomaaliyeed, sheekh fidiya diinta Islaamka, loo istaago, culimo ah, dadkuna ay diinta ka bartaan. Faynuus ayaa waalidkeed waxay ahaayeen dad culimo ah oo lagu yaqaan fidinta diinta Islaamka iyo weliba gudbinteeda. Sheekh Daahir waxaa ka aflahay arday badan oo diinta ka qaatay, isagoo magaalooyin kala duwan diinta ka fidiyay, kutaabo kala duwanna halkaasi ka bixiyay. Faynuus waalidkeed oo iyagu ahaa dad culimo ah ayaa iyadu waxay ka leexatay wadadii waalidiinteed iyo weliba sheekha caanka ahaa ee dhalay wadadiisii. Faynuus oo iyada gashay fanka iyo suugaanta Soomaalida. Faynuus fanka waxay ka bilowday kooxdii folklorka ee Abgaal Saciid iyo weliba Qoysgeedo ee madaxda ka ahaayeen. Faynuus oo iyadu habsoo gudbinta ciyaarta niikada
beeraleyda dhaantada iyo weliba qeybaha kala duwan ee ciyaar dhaqameedka Soomaaliyeed ayaa iyadu markii dambe waxa ay gashay jiritaanka iyo weliba soo gudbinta heesaha Soomaalida. Faynus waxay caan ku ahayd jiliinka iyadoo weliba habka ay jilayso iyo booska ay jilayso ay ka soo bixisay kana soo muuqanaysay. waxay kaloo Faynus banaanka ka jiri jirtay heesaha ay fanaaniinta banaadirga ka qaadaan qaybta hoose iyadoo codka jilaysa kuna soo gudbinaysa hab masraxiyeed cajiib ah oo dadka daawanaya ay soo jiitaan. fanaanada kale aynu soo qaadanayno waa fanaanadii boqoradii codka Soomaaliyeed, mid ka mid ah hablihii fankan Soomaalida hormuudka u ahaa waa Xaliima Khaliif Cumar Magool. fanaanadaas waa fanaanad cod halaasiya leh, weliba codkeeda iyo weliba hab soo gudbinteeda ay ahaayeen mid aad loo jecel yahay. Xaliima Khaliif Cumar Magool waxaa dhalay wadaad caan ka ahaa gobolada dhexe ee Soomaaliya. Khaliif Cumar ayaa isagu wuxuu ahaa wadaad ahlu dariiqa ah, wadaad minhaajka iyo weliba fiqiga kale ee ahkaamta shariicada. Khaliif Cumar oo caan ka ahaa gobolada dhexe iyo gobolada kale ee Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa nin fidiya diinta Islaamka, arday badan ka aflaxeen. haddaba Magool ayaa iyadu waalidkeed waxay ahaayeen culimo ahlu dariiqa ah oo diinta Islaamka ijaazo ka bixiya. Xaliima Khaliif ayaa laakiin iyadu waxay ka leexatay wadadii waalidiinteed, waxayna noqotay fanaanad cod dahabi leh iyadoo suugaanteeda iyo fanka suugaanta Soomaaliyeed ka gaadhay meeshii ugu sareysay ee qof fanaan ah uu ka gaadho geeyiga Soomaaliyeed. fanaanka kale oo isagu waalidiintiisa ay culimo ahaayeen Allah u naxariistay waa fanaankii codka dahabiga lahaa Cabdinaasir Macalin Saciid ayaa isagu waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa codkooda halaasiga ahaa hawada ka dananaya shimbiruna ay dhageysanayeen. Cabdinaasir aabihii ayaa waxa uu ahaa macallin dugsi oo diinta Islaamka iyo Qur'aankaba laga barto. wuxuu caan ka ahaa gobolada dhexe ee Soomaaliya, Mudug ilaa Galguduud. Macalin Saciid ayaa isagu waxa uu lahaa dugsiyo uu diinta Islaamka dadka ku baro. ahlu dariiqa ayuu ahaa, wuxuu ahaa macallin Qur'aan ay ka aflaxeen arday badan, diintana ay ka qaateen. Macalin Saciid oo ahaa macallin magaalooyin kala duwan degay oo ka tirsan gobolada Galguduud iyo Mudug. magaalo kasta uu tagana macallinkaasi dugsi Qur'aan ayuu ka sameeyay isagoo ay ka aflaxayeen malaayiin arday oo iyaga ku sii fidiyay diinta iyo Qur'aanka oo Macalin Saciid fidinayay. Macalin Saciid ayaa isagu noloshiisa dhan waxa uu hibeeyay fidinta Qur'aanka iyo weliba diinta. Cabdinaasir Allah u naxariistay ayaa isagu waxa uu ka leexday wadadii aabihii. Cabdinaasir ayaa waxa uu noqday fanaan caan ka ah geeyiga Soomaaliyeed, isagoo weliba heesihiisa iyo weliba hab soo gudbintiisa ay ahaayeen mid laga daba dhacay. fanaan akhlaaq wanaagsan, afgaaban, dabeecad leh ayuu ahaa, kuna eg howshiisa shaqada iyo weliba fanka iyo suugaanta. intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkeena. intaynu dib dambe u kulmi doono nabaadiino nooli kulanti iyo amaana Allah.